gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi isla markaana kamid ah aasaasiyaasha xisbiga wadani Axmed Muumin Seed haruna sharafeed soo dhaweyn u sameeyay Mawlid Cilmi Axmed Seef oo kamid ah dadka qurbajoog ee ku nool dalka Switzerland isla markaana ah gudoomiyaha golaha dhexe dalka Switzerland oo dalka howlo shaqo oo la xidhiidha ka qaybgalka shirweynaha xisbiga wadani u yimid dalka munaasabadan oo ka dhacday hotel Safari ee Hargeysa waxa ka soo qaybgalay wasiirkii hore xiriirka golayaasha Somaliland آدم أحمد وزير كحيانك هو وزارة هولها جودية جوريين كان مدها قرب كي حسب كلمية اسبدادون كها علي عبد صايغ ما يركحيانك هو مقالة بورا ما مؤمن جديد جنار عبد الحكيم عبد الله أحمد هي عبد ويني وكم مدها سراكيشة حسب وطني مناسبة هذا الله دردارا يسوع دوينا اللوسو دويجي قدوميها قالها دحيح حسبها وضني إدلك سويسرلاند موليد قدومي كحين كحسبها وضني أحمد مومن سيد أيات المامي إنه فرحت وين نطعم إنه قرأوا سمايو موليد علمي أحمد أوكي مدلك سويسرلاند أو هوش حسبها ويمد درتيد أي فرحتو تاع إسلام مركان أي تاني ديري قرني سقرب تشوك غير سومالان يكون الوضمة دي بدأ سيدا أي مدحضة حسبها وضني قارهان قدومي كحين كحسبها وضني أهنا مشرحة مدحوينة حسبها ugu miisaanka culus ee ku jira xisbiga ee ka sharaxan gobolka Awdal gudoomiyaha golaha dhexe xisbiga ayaa isaguna kalmada mahadnaqa u soo jeediyay gudoomiye ku-xigeenka ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi mudane Axmed Muumin Seed oo ku tilmaamay inuu tusaale u yahay siyaasiyiinta han kale ee hanka madaxweyne ka hayo xisbiga wadani wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay Axmed Muumin Seed hal doorka wax badan geliyay xisbiga isla markaana kamid ah aasaasiyaashii xisbiga Mawlid Cilmi Axmed inay markay arkeen inuu ku jiro ama uu madaxweyne ku-xigeenka yahay Axmed Muumin Seed ay ku dhiiradeen inay xisbiga soo galaan taasina ay daliil cad u tahay taageerayaasha uu haysto ee dhinaca golaha dhexe Axmed Muumin Seed sidoo kale waxa ka mahadnaqay harimo sharafeedka lagu soo dhaweeyay wasiir ku-xigeenkii hore howlaha guud Ali Cabdi Saayiq wuxuuna tilmaamay inay tani tusaale cad u tahay ku dhiiranaanta Axmed Muumin Seed uu soo dhaweynayo dadka qurbajooga iyo mas'uuliyiinta golaha dhexe xisbiga kulmiye أحمد مومن سيد قدومي كحيين كحسبك وضني مشرح مدحوني حسبك أنا أساسي حسبك وضني أي أرق حسبك بلوي أساسي كنمدا ضدك وضبحاتك وحسبك دستنبيتك إنه دادو حسبك وشري دادالك بدنية تاغارة بدن كسمي يقولها يدبدا أحمد مومن سيد أو كمدا سياسيين توعد عادة يقول له لما يا الجغل مدحوني كحيين حسبك وضني أي ددوينه أي سوين وقدريميان لوlanka ugu jiro madaxtinimada kursiga madaxweyne ku-xigeenka xisbiga wadani oo si weyn looga dareemay gobolada Awdal Maroodijeex Togdheer Sanaag Sool iyo Saaxil sidoo kale waxa si weyn looga dareemay loolanka iyo la kulanka mas'uuliyiinta golaha dhexe xisbiga wadani ku sugan caasimadda Hargeysa taasina waxay cadeyn u muujinaysaa hanka uu hayo inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka xisbiga wadani u tartamayo jagada madaxweyne ku-xigeen xisbigaasi Axmed Muumin Seed ayaa ahaa ragii kaambeynka ugu balaaran kala kulmeen xisbiyada jira Somaliland kulmiye wixid ee kaalinta labaad ka keenay markii madax taabashada laga waday qaar kamid ah gobolada Awdal iyo Salal Axmed Muumin Seed ayaa sidoo kale wuxuu ka qayb qaatay markii ay diiwaangelinta codbixiyaasha Somaliland ee kormeerka ku soo mariyeen gobolada ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay ragii sida weyn ay dadweynuhu ugu soo dhaweyn jireen goobaha degmooyinka iyo gobolada kale uu tago isaga iyo waftigu hogaaminayo hogaanka kamida xisbiga Axmed Muumin Seed ayaa si weyn looga hadalaya goobaha ay bulshada ku kulantay gobolada Awdal Salal Maroodijeex Togdheer Sool iyo Sanaag waxaana laga dhowrsugi doonaa halka ay ku biyashabato loolanka ugu jiro kursiga madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga wadani oo kula loolamayo nin dibajoog ahaa oo ka yimid dalka dibadiisa oo aan xisbiga wax kaambeena intuu wadanka joogay aan laga sameeyay waxaan Farax Qamaan Radio Boorama Online Hargeysa